marka hadda askari dili jiray haddaan qalana dhammaan askarta mida dilin male si loo garaacayo inuu soo qaban doono si loo garaacayo inuu keliya way garaaceen marka geeyo beesha dadka geeyo habeen waxa dhacday laba boqol baa soo saaray xabista labada boqol inta biyo lagu rusho ee la dul maro dinka laga dhigo ya iyo qaamo baa kuris ku xiray. So what we have is approximately 25 hours of footage from that 11-day assessment, and it provides very damning evidence of the acts that are committed inside that jail. The majority of the detainees in jail Ugaden are there because of perceived support for the Ugaden National Liberation Front, which is an armed opposition group. markii la bixiyo meel halkaas oo madow baa la geynayaa waxaana lagu su'aalayaa marka horeysa ururka onal waxa tira waan taageersanaa waan jecelahay marka tira anigu ma jeceli mana taageersani waxa lagu xidhayaa labada lugood katiinad baa lagaaga xidhayaa labada gacanood katiinad baa lagaaga xidhayaa si aadan u nuuxnuuxsanooda u dhaqdhaqaaqin Soomaali fig baa lagu dhahaa waa la figeeyay marka figta lagu haya gacmaha ayaa la isku xidhaa waa taas hadda saas igu taala tan kalena waa sidoo kale. The other piece of information critical for this report was interviews with almost 100 people, 70 of whom were detained in jail Ugaden. badeel baa saa loo dardarayaa sidii gobashi baa marka saa loo fidinhayaa kadib marka dadkii qofkii oon ka carcarari karin oo labada gacmoodna ka katiinadaysan laba lugoodna ka katiinadaysan baa dabkii lagu galgalsiinayaa si uu ma aragtay ugu gubto oo intuu cabsado waxa laga raadinayo uu sheego. new booliska iyo booliskuba dadka intay isu keenaan oo qaawiyaan oo ay isku xidhxidhaan bahalka kaga xidhaan guska kaga xidhaan xarig oo midba mid xariga ku jeedo iyo budad bay la dhacaan la dhex qaadaan marka labaad way seexiyaan new boolisku iyo booliskuba intay seexiyaan dadka si guud oo dhammaan shafka ay dhulka u saaraan xabadka iyay ku dul ordaan oo dhex socdaan buriyayaan dhoobadana ku galgashay yiraahdaan. A number of prisoners described being taken for individual interrogations in room number 8. This was a room that was had a series of very small rooms. A number of people described being chained to the wall of that small room. It was dark, they could not see any light. Waxa laga yaabaa inta kor lagu qaado in madax lagu soo fooruriyo sida lagu fooruriyo oo lugahaagina kor laga soo lolo. Waa biyahaas iyo sawirkii oo qabow oo biyo intii la mariyay qoyan oo aad dhex taagnaan adoo kor lagu xidhin tagtinada ugu xidho kor laga soo lalminayo. Another technique that was described to Human Rights Watch by multiple prisoners was being submerged in cold pools of water that were in between the two walls inside of jail Ugaden. barkada marka biyaheedu waa baraf qabow sida hadda barafka kulku halkan ka daayo oo kale qabowgaas aniga wax lagu qaboojiye ma garanayo laakiin inay qabow tahay baan arkay halka rag iyo dumarba marka lagu guraya dadka waa la qaaqaawinaya oo maryaha laga wada furaya. There has often been silence from Ethiopia's government on the abuses that security officials commit. But in mid-June, Ethiopia's new Prime Minister Abiy, admitted that torture was a problem in Ethiopia's place of detention in an address he gave to Parliament. This is a really positive step.